gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa farxadda dabaaldega la qaybsaday xulka kubadda cagta gobolka Banaadir oo ku guuleystay tartankii xiisaha badnaa ee kubadda cagta dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. Duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish oo ay weheliso gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamul gobolka Banaadir iyo xulka kubadda cagta gobolka Banaadir ayaa socod luga ku maray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho si ay u muujiyaan guusha weyn ee u soo hoyatay dadka reer Muqdisho. Intuu socday dabaaldega socodkani ayaa mas'uuliyiinta iyo ciyaartoyda waxa ay ku dhawaaqayeen ereyo dhiirigelin ah iyagoo socodkooda ku soo gabagabeeyay aargada degmada Shangaani. Macalinka xulka kubadda cagta gobolka Banaadir Daadir Amiin oo warbaahinta la hadlay ayaa xusay in guushani ay sabab u tahay isku xirnaanta u dhaxaysay maamulka ciyaartoyda iyo dhiirigelinta dadka reer Muqdisho. guusha aniga hadda kama sheekay karo. guusha waxaan ku gaarnay in la iska garabsaday, gacan la iska siiyay, si niyad furnaan lagu shaqeeyay, maamul ilaa iyo ciyaartoy ilaa iyo taageero. anaga keligeen wax ma qaban. runtii aniga aad ugu faraxsanahay guusha maanta gobolka Banaadir inaan horsoodo. maskaxdiisna aan lahaa, laakiin maskaxdeeda waxaa ka horeeyay dhiirigelin ee ii dhiirigeliyeen maamulka aniga iga sareeyo ee gobolka Banaadir ugu horeeya duqa magaalada Muqdisho. hadalka ma dheereena insha Allah. farxadeena way sii badan tahay. caawa magaalka soo fiiriyay walaalaheena qaaliga wadooyinka ku dabaaldegayeen. ciyaartoydeyda walaalaheena saaxiibadeeda oo soo wakiishay inay tartanka ay guuleeyaan si gaar ah idinku mahadcelinaa dhammaan ciyaartoyda halkan ku sugan. la-aantiin wax ma ahaan lahayn aniga. adinkaa waxay iga dhigteen, waan idinkaaga mahadcelinaa, weligiin waa idin xasuusan doonaa. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamul gobolka Banaadir Marwo Basma Camar Jaketi ayaa dhankeeda goobta ka hadashay. balanaan wada galnay, balantii aan wada galnay iyo ducada aan wada duceysanay Allah subxaanahu wa tacaala waa noo oofiyey. maanta caasimadda magaalada Muqdisho koobkii diyaarada lagama saarin. mudane gudoomiye gacantaada ku haysataa dadaalkaasay ku nadaafsan adoo ah bah isboorti, adoo ah jecel dhalinyarada in la garab istaago, adoo ah horumarkii magaaladan bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah gudoomiyihii ugu horeeyay ugu baaqayaan. bulshada magaalada Muqdisho haddii loo malaynayo inay dhib taalo magaalada Muqdisho ayna amni ahayn, ha lagu qoys qaato maalmaha quruxda badnaa aan soo marnay. bulshadeeda siday nabadda ugu shaqeeyeen ee diyaar ugu yihiin nabadda iyo isdhexgalka bulshada. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish waxa uu u ballan qaaday ciyaartoyda iyo macalinka xulka gobolka Banaadir abaalmarino ay ku farxaan. mudanayaal iyo garwooyin, waan isugu hambaliyaynaynaa ciyaartan guusha aan ka soo hoynay min ciyaartoy ilaa maamul. waxaan la rajaynayaa sida aan u soo hoynay inaan u difaacan doono sanad kasta biidnillahi alkariim. waxaa sharaf noo ah maamulka kooxda gobolka Banaadir ee kubadda cagtu inay soo hoysay guul taariikhi ah. sidoo kale waxaa sharaf noo ah kooxda naadiga Muqdisho ee MCC inay iyaguna horyaalkii dalka ay ku jirto gacantooda midigta. haddii aan nahay reer Muqdisho horyaalkii waan haynaa. haddii aan nahay reer Banaadirna goboladii oo dhan waan haynaa. waxaan rabaa halkan inay soo istaagaan tababaraha kooxda iyo goalkeeperka ama goolhayaha kooxda. aqal ninka dhisaaka weyn tababarihii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku guuleeyey tababarkiisa inuu guusha uu gacanta soo geliyo ayaa halkan taagan oo ka dhigan guushaas dhisiheedii qofka dhisi oo dhidhibada waas. waxaan rabaa kooxda inaan halkan ballanqaad uga sameeyo lacageed oo gaaraya $10,000 Mareykanka.
waxaan rabaa amiin iyo goolhayeysa inay noqdaan dad ka tirsan 2 xubnood ka tirsan xafiiskay. waxaan rabaa abaalmarin kale oo aanan hadda iska sii sheegay laakiin maamulka oo dhan iyo annaga aan ka tashan doono inaan ciyaartooyda ayagana aan siin doono in halka ka dhawaa. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.